dawladda dhowra oo Afrika leh oo Yurub leh oo Asia leh oo ku jiray arinta inay dhex galaan Soomaaliya iyo Soomaaliya waxa kamid ah Turkiga waxa kamid ah Sweden oo labaduba noo yimid iyagoo wada socda halka noogu yimid oo ku diyaar baan u nahay wada hadal kartaydu way noo duubantahay geed walba diyaar baan u nahay inaan kartayda ku gallo annaga u baahan waxaan dhex galaa labada dawlad waxay waliba culays badan saareen madaxweynaha Djibouti oo yiraahdeen adiguna nagu soo biir haddaan nahay Turkiga iyo Sweden oo isaguna ay soo weydiiyay oo yiri arintaas la yiraahdo maxaan ka yeelan karo aad iyo aad baan soo dhaweynaa inaad soo gasho cid wal artay soo galaysa waan u baahanahay gartaydu way noo go'antay fagaara kama baqayno war ma qabno gartaydu way noo taala waa noo duubantay arintaas intaas ay ku dhamaatay saas lagu soo kala ma baxay bishan 13 February ayaa waxa dhacday arrin kulliba aan filayn dadka badankooda aan filayn madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raali gelin wixii xasuuqi ka dhacay Soomaaliland sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan 8 kilo oran maayo 9 wuxuu ka soo bilaabay ilaa 60 maalintii inqilaabkii Xasan Kaydii lagu diray ninkii sarkaalka ahaynay inacabe raali gelintaasi waa ninkii u horeeyay Xasan Sheekh marbuu si dulmara u yiri waan ku xunaa wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadka ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halka raali gelin baan ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anay kadsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobka laga reebo raali gelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintan la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya waayo garusho waasid erayada qaar oo dadka qaarkood laga yaabo inay siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlaayo ninka hadda ay raali gelinta bixinay inta in leeyo ka soo horjeeda oo aan saa warkaynin ayuu la hadlay caalamka la hadlay marka maanta halkaasi waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga geli karo garowshahaasina waa koow anana waa gudoomayna waxa raacay hadaba waxa xumeeyay oo ka dabiyay arrintaasi hadal haynta imaatinka madaxweynaha Soomaaliya la yiraahdo Hargeysa imanaya waa laba aan isqaban raali gelin baa bixinaya oo waxa soo damiya qiranaya iyo waan imanaya waa laba aan isqaban gadaal baynu ka hadlay doonaa waxaan ka oranayno imaatinkiisa laakiin waxaanu raacaynaa maxaa dhacay hadaba raali gelintan maxay ku timid maxaa dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliland 73 sano waxay ahayd mustacmaradii ama maxamiyadii Ingiriiska 1960 bishii July kowdeedii Soomaaliland iyada oo dawladda oo lixsha dawladda ahayd dawladdii 15aad ee Afrika ee xorriyadda ka qaadata mustacmaraadka oo ay aqoonsadeen 35 dawladood ayaa waxay la mudowday dawladdii ka dhalatay Soomaaliya oo markaa ahayd meel ay dusha ka ilaaliyaan jimcada Qurmaan ka dhaxaysa oo maalinta Talyaaniga loo dhiibay Talyaanigu haystay ayaa kowdii Juulaay xorriyaddeeda qaadatay bal qabso iyaga si gaar ah ciidamo ictiraafin shardi kaliya ayay Soomaaliland kula midowday Soomaaliya iyo koonfurtii shardigaasi wuxuu ahaa in la helo shantii Soomaaliyeed oo midooba taana waa la waayay 30 sano oo la raadinayay madaxweynihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya wuxuu si rasmi ah uga noqday
midnimadii la raadinay shanta Soomaaliyeed dabayaaqadii qarnigii tegay waxaanay ku caddahay komunikeeyadii ka soo baxay shirarkii uu ku galay Jabuuti iyo Addis Ababa waxa kale oo jooga oo caawa nool markii laga soo noqday dagaalkii 78kii shir uu wasiiradiisa isugu yeedhay rag nool caawa oo Hargeysa qaarkood joogaan markii uu soo jeediyay ku daalay raadinta Soomaali weyn oo waynu ka noqonaynaa danteenu ka raacaynaa taasina waa dhaabad mirtaala markii loo codeynayay dastuurkii midnimada sanadkii 61kii dadka Somaliland boqolkiiba 8 baa diiday aftida iyo dastuurka lagu midoobay waxa ka horeysay ma jirin maxay u diideen Somaliland markaa yaa la soo diinaya waxa u diideen ma jira ilaa maanta mana dhammaystira axdi lagu midoobay oo labada dawladood saxdeen heshiis ahaa oo dhammaystiran oo xeer caalami noqon kara ma jirin 30 sanadood midaysnay markhaatigeedaan idin sheegaya inqilaabkii 10kii December ka dhacay Hargeysa ee saraakiishii Somaliland ee ciidamada ay doonayeen inay ku soo celiyaan xorriyadda markay arkeen inaan heshiis axdi jirin oo ka dhaxay labada dal markii la xiray rag inqilaabka wada xasan kayd yalaha Allah u naxariistay maxkamad baa la geeyay xamar ku taala 2 sanadood bay maxkamadda socotay markii maxkamaddii gunaanadkeedii la soo gaaray waxa judge ka ahaa nin Ingiriis oo la yiraahdo Mr Hazelwood waa ka heli kartaan Google-ka cid walba inay ogtahay wuxuu ku dhawaaqay inaanay dambi lahayn waayo ma jiro axdi midaysan oo laba dawladood galeen markaa waxay daacad u yihiin oo haddii ay ciidan xisaabtamayso dawladdii Somaliland ma jirto dawlad madaxweynaha nimka jooga cad oo qaadi kara sidaasaan ku soo bixin waa markhaati cad inaanay marna dhammaystirmin midnimadii aan lahayn maxaa ku xigay markii dastuurkii loo codeeyay ereyga aan maqasheen aadan yabaalays iyo walaweyn oo atu magaalo yar markaa oo mid walba ay ka codeeyeen wax ku dhadhow dhowr boqol oo kun dalka ma joogo waa marka ay soo baxday maxaa intaa ku xiga dhacay markii dawladdii la dhisayay dawladdii ugu horeysay ee midnimo lagu dhisay waxay ahayd 14 wasiir 3 baa Soomaaliland laga siiyay xaruntiina xawr bay noqotay madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo 3 taliye ciidan intaasna kuwa furba qaatay ka soo gudub dalka Soomaaliland wuxuu ahaa maalinta la midoobay 6 degmo Boorame Hargeysa Berbera Burco Laascaanood iyo Ceergaabo 6 degmo districts bay ahayd koonfurtu waxay ahayd 6 degmo Majeerteenia Hiiraan Mudug Jubbada Sare Jubbada Hoose maxaa dhacay 61kii maxaa la sameeyay waxaa la soo saaray gobollada dalku ka koobnaanaya midaysan ee Soomaaliland 6 degmo ee Somaliland waxa laga dhigay 2 gobol oo qura gobollada bari oo Burco xarun tahay iyo gobollada galbeed oo Hargeysa xaruntii 6 degmo ee koonfurta 6 gobol baa laga dhigay ka soo gudub dagaalkii 77 iyo kii 64kii labadaba boqolkiiba 70 miisaankiisu wuxuu ku dhacay Somaliland magaalada burburiyo barakac qaxooti culayskii ciidamada culayskii jabhadaha iyo wixii dhacay weyn oo leh tafaasiisheeda halku galmayno khasaaraha iyo culayska dalkaasi lahaa mid uma uga socda gobolada waqooyiga waxa la keenay qaxooti tiradu gaaraysa 400 oo kun
waxaa 12 xero looga dhisay Somaliland jalaqsi oo kaliya ayaa xero looga dhisay koonfurta inta ay midaysnaayeen labada dal wixii dhaqaale horumarina ama mashaariica ee caalamku ugu deeqay bariya galbeedba wixii laga gurayay Ruushya Mareykan iyo Carabba oo bariga aad u irmaanaa boqolkiiba 7 kaliya ayaa ka soo gaaray Somaliland oo ahaa wadada ka soo burca soo gaadha ee ilaa iyo socota Hargeysa galbeedka u baxda ku ekeed kala baydhka iyo warshadii sibirka ragina wada joogteen ka mid baa hay'adaha lagu dar hadii wax kala lahayo halka markay marayso 1961 6 Abriil waxa lagu dhawaaqay asal si loo raadceeyo xorriyadii Somaliland ee luntay 60kii dagaalkii ugu weynaa wuxuu dhacay 1988kii dawladdii markaa jirtay waxay soo weerartay shacabigii iyo magaalooyinkii Somaliland boqolkiiba 9 magaalooyinka qaar ayaa la baabiyey magaalooyinka waaweyn oo dhow waa la burburiyey buuga ay qortay dawlad dadkeedii dilaysa raaqiye ay qoreen qolada maartay xuquuqda aadamiga ayaa si dhitay u hayay muddo 2 wiiga waxa lagu dilay 50 kun oo qof magaalada Hargeysa iyo Burco iyadoo magaalada ka weynta la eegay diyaarada magaalo walba iyadoo burburinayay haddana meelaha dadku badanaya waxa lagu weeraray diyaarado taangi madaafiic iyo gaasas ciidamo luga waxa barakacay 600 oo kun oo deganaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland mid walba gobol walba ayaa ka qaxay oo u farxaday gobolada jaarka ah iyadoo xiriyo waaweyn looga sameeyay bariga Itoobiya kontanka kun ee hore ee wiiga diyaaradaha iyo madaafiicda taan ku laayeen in ka badan oo bilaabakeeda ayaa silic iyo darxumo u dhimatay umulle daale waayeel waxa la baabiyey boqolaal sano wixii ay tolcanayeen Somaliland ee adduunyaha ee aqoonaha ee buugaha waxba laga bixin waa la cirib tiray taariikhda Somaliland si ula kasa loo baabiyey hay'adda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa human rights qaabilsan iyadoo kaashanaysa unuga ama unitka u qaabilsanaa Somaliland UNCO ood kooda heli kartaan Google-ka 2001 waxay ka marag fureen oo xaqiijiyeen qoraalkooda ku qoreen wixii ka dhacay Somaliland dawayaaqadii qarnigii tagay ee dawladdii Somali Democratic Republic ay ku samaysay inuu ahaa xasuuq bini aadmi waa marag madoon waana tuu ka marag furaya farmaajo Ameerika marawlay waxa la xaqiijiyay oo imika la hayaa sahankooda 43 xabaalo wadareed oo dadkii qaar baa iyaga oo nool kal sheekh magaalada la yiraahdo inta dadkii lagu riday goof lagu uriyay iyaga oo nool iska rogooyin lagu dunguray qaar baa iyaga oo nool gabri lagu gubay waxaa soo dhan ka soo socda iyadoo waxaa soo dhameeyeen 18 May Somaliland burca isugu timid markay aragtay Somaliland wax garadkeedu ugu dhamaa markay aragtay inaanu jirin axdi midaya Soomaaliya Somaliland oo dhammaystiran oo caalami oo sharci qabanaya ah markay aragtay sida dawladdii Soomaaliya ee la yiri hal doonashatii Soomaaliyeed loogu hongoobay in Soomaaliyeed helaan waliba u tashaday markay Somaliland aragtay
in dowladdii Somali Democratic Republic ay si toosa uga noqotay ballantii ahayd shanta Soomaaliland hal la doono markay aragtay Somaliland ay garowsatay burburka iyo dulmiga iyo dilka iyo dhaca iyo xumaynta loo geystay iyada oo madax dhaqameedkeeda siyaasigeeda suldaankeeda jabhadkeeda ciidan beeleedkeeda isu dhan waxay go'aansatay in dalka lagu soo celiyo halkii uu joogay 26 Juun 1960 oo noqon dal gaar u taagan waa rabitaanka shacbiga waa codka ugu weyn ee xaqiijin kara waa codkii maalintii hore shacbiga Somaliland yiri shuruud aan lagu geeyay xamar la yaa garaad waa dadkii lahaa midnimada la doonayaa waxba gurgurso su'aalo la soo doonayaa maanta waxay leeyihiin maya waanu eednay ku noqon mayno intii ay 30 sanadood kala maqnayn intii ay jirtay Somaliland waxa taa ka daran wixii hore dhacay 30 sano dawladii Soomaaliya isaga dambeeyay ee taa maanta ku jirta dagaalkay hore ka adag oo caalamka oo dhan ah ayay u galeen inaanay Somaliland hirgin inay cunaqabateeyaan inay adduunka oo dhan ka hor joogsadaan oo aad muddo Somaliland inay ahayd qola ay adoonsadaan oo qool gaar ah ku xidheen ay adduunka oo dhan la mareen oo aanay Somaliland yeelayn markaan soo gaabiyo dawladdan ugu dambaysa markaan soo koobo dawladdan Soomaaliya maanta ee Maxamed Cabdullaahi hogaaminayo waxay ahayd tii ugu cadaawad badnayd intii dawladdan soo martay inkastoo maanta raaligelin uu bixiyay oo moodaysa inuu wado wanaagsan u bayray waxba ka daba keenay waxay ahayd dawladdii ugu cadaawad badnayd ee dagaalka ugu kulul la gashay Somaliland say dhinac walba uga dagaalanto dhowr qodob baan ka soo qaaday waxa kamid ah horjoogsiga dhaqaale iyo cunaqabataynta ee iska hortaagtay Somaliland in caalamka ay cid baxay la yeelato ku wax siya dhaaf inaanay cid bal la baamshay karin inaanay cid wax siin karin waxa wada ogsoontay dagaalka ay ka gashay mashruuca ballaarinta berbera ee bareerka ahaa waxa kamid ah horjoogsigii sanduuqa mashaariicda u gaarka ah Somaliland ee dawladdu ka siirayeen special arrangement Somaliland ee ra'iisul wasaaraha jooga intuu qoray yiri lama sii karana ka dawladda bal hadee dhugo maan la wixii soo dhacay iyo halku wax marinayo waxa kamid ah horjoogsiga heshiiskii ay wada galeen Xasan Sheekh oo isaga ka horreeyay iyo Silaayo ee ahaa hawada iyo lacagta hawada ee aan wada lahayn in la qaybsado oo qoraal ku aqoon walba inta qaadanaysa sida loo maamulayo oo ay ku doodeen ikaw anagana la ictiraafsan yahay cid kale lama hadli karo oo ilaa maanta xalliday waxa kamid ah in wax alliyo wixii dhaqaale ah ama deeq ah waxbarasho caafimaad infrastructure ee caalamku ku bixiyo magaca dawladdii Soomaaliyeed ee naga dhaxaysay inay ku go'aansadeen dhammaantood in aan Soomaaliya waxba loo gudbin ilaa iyaga loo soo mariyo Somaliland taa way diiday cad qureed ma siisatay xorriyadeeda waxa kamid ah inay dagaal la gasho oo xidhiidhka u geyso dawlad kasta iyo hay'ad kasta oo xurmayso ama maamusta Somaliland qaran ahaan iyo qof ahaanba tusaale waxay noogu filan inay gini cilaaqaadka u jirtay markay magaca Somaliland iyo shacabka Somaliland karaama iyo maamus muujisay waxaan ku soo koobayaa waxaa soo dhacay 60 sanadood dul xaadiska ah oo kun buug beesh laga qori karo oo dokumentigooda iyo waaqicigooda lahay ee aan ahayn laab la kaciyo caadifad maanta Soomaaliya iyo qolada koonfur badhaho laba qodob ay baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaari karnaa laba qodob oo kaliya balanka mid saxada ay keeno
كو Soomaaliya qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacbiga Somaliland iyo xaqa ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida toddobaadnimada u galeen ee shacbiga Somaliland gaadhay 18 May 1991 inay ixtiraamaan kaliya ayaan ku heshiin karnaa laba waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha imka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxbannaanida dowladda Soomaaliland ee qiraan inaynu nahay laba dal oo midoobay iyaga oon isqasbin oo frontier ah maantana si xor u kala baxay taasi waa conclusionka iyo axadigi Soomaaliland gaadhay burco distoorkeenu inuu ku dhisan yahay qof kasta dalka hogaamiyana uu ku qasbay aanu kala xaleexan karin waxaan u soo degayaa hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal haynta haba xun madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan buu qaaday markuu yiri raalgelin baan bixiyay laakiin wuxuu ku diray markuu yiri waan imanayaa hargeysa oo sideebuu ku imanayaa la isweydiinaya sideebuu ku imanayaa xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisii iyo dalkiisa uu ka madaxda yahay waxa soo dambiye galeen ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya anigoo madaxweynaha gobolladii soo siyaarinaya soo maaha waan imanaya macnu soo wada soo inta maaha oo taa meenu aqbalaynaa maya suurtagal maaha ma yeelayno suurtagal ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha Soomaaliya talaabo cabad qaad raalgelin baad bixisay waxaan u qaadanay inaad nabad iyo aqlida ay soo socoto laakiin ku iibsan mayno erf laga yiri waan ku soo siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawad ayna u baahnayn oo bilow markaan soo koobo hadal haynta leeyahay wuxuu imanayaa Soomaaliya imanayaa buuri madaxweynaha Muqdisho anu wax kale oo garagaran maaye aan ku cabiree gabaygii Faarax Nuure kala gooyin baa arinta ka jawaabaya Faarax wuxuu yiri qosol beera foolal qayaxan qiilan garanayo booraan afkii laga qafilay qabarna hoos yaalo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigane maaniga midiya lay qarshaa laygu qali doono qoontiiba lama baananine qarayara nabadu waryaara kala quusanaya qomama la'aada والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Somaliland madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaa dawladda dhowra oo Afrika leh oo Yurub leh oo Asia leh oo ku jiray arinta inay dhex galaan Soomaaliya iyo Soomaaliya waxa kamid ah Turkiga waxa kamid ah Sweden oo labaduba noo yimid iyagoo wada socda halka noogu yimid oo ku diyaar baan oo nahay wada hadal kartaydu way noo duuban tahay geed walbana diyaar baan oo inaan kartayda ku galno
annagaa u baahan waxna dhex gala labadaa dawladood waxay weliba culays badan saareen madaxweynaha Jabuuti oo yidhaahdeen adiguna nagu soo biir haddaan nahay Turkiga iyo Sweden oo isaguna isoo weydiiyey oo yidhi arrintaasi la yidhi maxaan ka yeelan kure aad iyo aad baan soo dhaweynayaa inaad soo gasho cid wal artay soo galaysa waan u baahannahay gartaydu way noo go'antay fagaara kama baqayno warwar ma qabno gartaydu way noo taala waa noo duubantay arrintaasi intaasay ku dhamaatay saasa lagu soo kala baxay bishan 13 February ayaa waxa dhacday arrin kulliba aan badan anigu aan filayn dadka badankooda aan filayn madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raali gelin wixii xasuuqi ka dhacay Soomaaliland sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan 8 kilo oran maayo 9 wuxuu ka soo bilaabay ilaa 60 maalintii inqilaabkii Xasan Kaydii lagu dilay ninkii sarkaalka ahaa ina cabe raali gelintaasi waa ninkii u horeeyay Xasan Sheekh marbuu si dulmara u yiri waan ku xunaa wixii ka dhacay ee dhibaatooyinkii dadka ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halka raali gelin baan ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anigu kadsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobka laga reebo raali gelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintan la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya waayo garusho waasad erayada qaar oo dadka qaarkood laga yaabo inay siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlaayo ninka hadda raali gelinta bixinay inta in leeyo ka soo horjeeda oo aan saa warkaynin ayuu la hadlay caalamka la hadlay marka maanta halkaasi waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga geli karo garowshahaasina waa koow anana waa gudoomayna waxa raacay hadaba waxa xumeeyay oo ka dabiyay arrintaasi hadal haynta imaatinka madaxweynaha Soomaaliya la yiraahdo Hargeysa imanaya waa laba aan isqaban raali gelin baa bixinaya oo waxa soo damiya qiranaya iyo waan imanaya waa laba aan isqaban gadaal baynu ka hadlay doonaa waxaan ka oranayno imaatinkiisa laakiin waxaanu raacaynaa maxaa dhacay hadaba raali gelintan maxay ku timi maxaa dhacay jamhuuriyadda Soomaaliland 73 sano waxay ahayd mustacmaradii ama maxamiyadii Ingiriiska 1960 bishii Juulaay kowdeedii Soomaaliland iyada oo dawladda oo lixsha dawladda ahayd oo ahayd dawladdii 15aad ee Afrika ee xorriyadda ka qaadata mustacmaraadka oo ay aqoonsadeen 35 dawladood ayaa waxay la mudowday dawladdii ka dhalatay Soomaaliya oo markaa ahayd meel ay dusha ka ilaaliyaan jimcada qurumaha ka dhaxaysa oo maalinta Talyaaniga loo dhiibay Talyaanigu haystay ayaa kowdii Juulaay xorriyaddeeda qaadatay bal qabso iyaga si gaar ciidamo ictiraafin shardi kaliya ayay Soomaaliland kula mudowday Soomaaliya iyo koonfurtii shardigaasi wuxuu ahaa in la helo shantii Soomaaliyeed oo midooba taana waa la waayay 30 sano oo la raadinayay madaxweynihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya wuxuu si rasmi ah uga noqday midnimadii la raadinayay shanta Soomaaliyeed dabayaaqadii qarnigii tagay waxaanay ku caddahay komunikeeyadii ka soo baxay shirarkii uu ku galay Djibouti iyo Addis Ababa waxa kale oo jooga oo caawa nool markii laga soo noqday dagaalkii 78kii shir uu wasiiradiisa isugu yeedhay
rag nool caawa oo hargeysa qaarkood joogaan markii uu soo jeediyey ku daalay raadinta Soomaali weyn oo waynu ka noqonaynaa dantaynu ka raacaynaa taasina waa dhaabad meeltaada markii loo codeynayay dastuurkii midnimada sanadkii 61 dadka Somaliland boqolkiiba 8 baa diiday aftida iyo dastuurka lagu midoobay waxa ka horeysay ma jirin maxay u diideen Somaliland markaa yaa la soo diinaya waxa u diideen ma jira ilaa maanta mana dhamaystira axdi lagu midoobay oo labada dawladood saxdeen oo heshiis ahaa oo dhamaystiran oo xeer caalamiya noqon kara ma jirin 30 sanadood midaysnayn markhaatigeedaan idin sheegaya inqilaabkii 10 Disembar ka dhacay Hargeysa ee saraakiishii Somaliland ciidamadaha ay doonayeen inay ku soo celiyaan xorriyadda markay arkeen inaan heshiis axdi jirin oo ka dhaxay labada dal markii la xiray ragii inqilaabka wada xasan kayd yalaha Allah u naxariistay maxkamad baa la geeyay xamar ku taala 2 sanadood bay maxkamadda socotay markii maxkamaddii gunaanadkeedii la soo gaaray waxa judge ka ahaa nin Ingiriis oo la yiraahdo Mr Hazelwood waa ka heli kartaan Google-ka cid walba inay ogtahay wuxuu ku dhawaaqay inaanay dambi lahayn waayo ma jiro axdi midaysan oo laba dawladood galeen markaa waxay daacad u yihiin oo haddii ay ciidan xisaabtamayso dawladdii Somaliland ma jirto dawlad madaxweynaha nimka jooga cad oo qaadi kara saasaan ku soo bixin waa markhaati cad inaanay marna dhamaystirmin midnimadii aan lahayn maxaa ku xigay